ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحن إن شاء الله إسلا أركي دونا فلنقينتين السوق وحوي آذا لبا وحوي مر الباسبوع عن فلنقينو السنين تمارنت السنين أما همينك حدا همينك سنين تسوق جلسوا سي وحوي فرصة أسبوع وحوي أنا وفي هذه السنة إن شاء الله دولا يرادو سيد عدد النوع هيد بوحن كبلاوة يا العيت اللي يراد دي إكس واي دي إكس واي بحنك سوينا إن شاء الله أسبوعا دي إكس واي هذه ديلي تيم فريم كان تجو ستيل وحمود إن ماركتي العيتان ay abtrin ku jiro oo hadaa fiirisid sida horay aan soo sheegnayba lacagta waxay ku jiraa imbalance waxaana waxa weey waa continuation waxa marka laga sugayaa insha Allah dulaa yiraahdo inay sameeyso abtrin inay sii wadato imbalance-ga hore waxa weey mid lamid ah ay sii sameeyso markaas aan idin sheegayba waxa weey asbuucii hore qofkii xasuusta waxa weey DXY ilaa halkaas aan soo saarnay ilaa inta waxa weey DXY waa daba soconay oo mataqaana dadkii waxa weey asbuucii hore kii kasii horeeyayba waxa weey nala socday way ka warqabaan waxa weeye markii aan halka waxa weeye lacagta baa igu soo direynay marka waxa weeye fursadda caawa aan ka sugnaa asbuucana uga fadhino waa maxay still waxa weeye fursaddeeni bayda ahayd baa ka jidha maadaama hadda lacagta waxa weeye DXY ama US dollar waxa weeye ay wali awoodii ay leedahay oo wali awoodeedii ay sadciifin sidoo kalena asbuucan la sugayo in mataqaana uu ka soo baxo war waxa weeye NFP-ga asbuucan soo socda waxa weeye NFP baa la sugayaa insha Allah dulaa yiraahdo marka soo kabashada waxa weeye dollarku waxa weeye way muuqataa marka waxaan is leeyahay asbuuca soo socda xataa newska soo baxay waxa weeye NFP-ga wuxuu u sii kaxayn doonaa buy marka DXY anaga targetka aan ka sugayno waa ilaa halka inay gaadho insha Allah dulaa yiraahdo 4 hour kan tagaya 4 hour ka waxa weeye lacagta DXY maxay sameynaysaa almost waxa moodaa inay bilaabatay up trend inay bilaabatay trailing-kuna muhiimadu waxa weeye laba taabasho inaa ka heshay laba taabashana waa ka heshay oo ah 1 iyo 2 labada taabasho markaa heshay waxa u baahan tahay waxa weeye in horta fiirisid waxa weeye hira shoulder kan horta meesha uu ku jira oo hira shoulder uu muuqdaa laakiin almost lacagtan waxa la rabaa garabka markay joogtay waxa weeye inay sii daadato in halka ka sii daadato la rabay laakiin se waxa weeye maadaama imbalance continuation waxa uu yahay almost way iska cadayd inay sii sameynayso waxa weeye continuation up ah marka continuation keedii up ka haabay sii wadatay oo ay ku sii socotaa marka lacagta DXY already trendiga waa helay trendi buy ah helay traininga bayga marka heshkid maxaa fiirinaysaa intriga fiirinaysaa trailing waa maxay laba taabasho hadaa ka hesho almost 1 iyo 2 hadaa ka heshid almost waxa u baahan marka triga laba taabasho trailing waa haystaa in aad marka ismaaraysid oo ma garanaysaa aad intriga sii raasatid almost intriga sii ku raadsanayna waxaan fiirin doonaa 4 hour-ka demand zone ma haysana almost waa haysana waa kan demand zone oo halkaan inoo yaala almost demand zone halkaan inoo yaala 1 hour kan sii tagaya almost kan marka demand zone maxaa ka dhigay demand zone waxa ka dhigay waxa weeye opposite waxa weeye resistance baa la jabiyay sidoo kale waxa weeye suuq muxuu sameeyay sidoo wuxuu sameeyay almost waxa weeye liquidity hole uu sameeyay marka 1 hour kan u gudbaya waxaan fiirin doonaa intriga suuqa uu leeyahay insha Allah dulaa yiraahdo lacagta waxa weeye lacagta DXY waxa moodaa in xooyar la soo celin doono wax yar oo halkan waxa weeye ay ka sameyn doonto halkan waxaan ka haysanaa laba taabasho trailing kan in la keenayo waqti insha Allah halkan marka almost waxaan ka haysanaa laba taabasho halkan korona waxa weeye laba taabasho marka lacagta waxa weeye DXY waxaan ka sugaynaa fursad buy inay nasiiso markii area-dan ay timaado oo trailing kan plus demand zone kan ay si fiican u soo taabato almost demand zone kan waxa moodaa in la soo taaban halkan maxaa ku jira halkan almost waxa weeye equal low baa ku jira marka halka waxay u egtaa waxa weeye in la soo clear gareynayo oo meeshan la imaanayo la jibinayo kadibna waxa weeye trailing kaas mar labaad bounce lagu sameeyo ama halka la imaanayo kadibna waxa weeye buy laga aadi doono marka insha Allah lacagta DXY fursadeena waxa weeye markii halka la yimaado ama trendigan loo yimaado oo saa lagu soo laabtay insha Allah targetkaaga koobaadba meelahaas waxa weeye tiiboonkaaga oo kale waa ka dhigan kartaa insha Allah marka lacagta DXY fursad runtii buy ay leedahay kadibna waxa weeye hadii meelaha continuation kale ay ku sii sameeyso fursadaada labaad waa ka sii raadsan kartaa insha Allah dulaa yiraahdo marka lacagta DXY targetkaagu waxa weeye meelahaas noqdo way sii socon doontaa insha Allah ilaa halka waxa weeye waxay u baahan tahay inay gaari doonto marka waa 140 biib oo kala ku sii jida insha Allah lacagta waxa weeye DXY fursadaas selkan aan ka sugeynaa marka lacagta waxa weeye DXY waa garanay waxaan ku xijinayaa insha Allah lacagta Euro USD oo DXY mar walba waxa weeye lacagta maamusha lacagta waxa weeye Euro USD mar walba waxa maamusha DXY hadda fursad ka heshid oo buy ka heshid Euro USD waxa weeye fursad seel waa inaad ka raadisaa marka opposite isku yihiin waxaan fiirin doonaa lacagta waxa weeye ayada Euro USD fursadan ka sugayno waa maxay Euro USD almost waa sida waxa weeye DXY oo kale DXY waxaan ka sugaynaa fursad buy ayada waxaan ka sugaynaa fursad seel aan ka sugaynaa insha Allah dulaa yiraahdo almost lacagta la yiraahdo Euro USD
saan sheegnayba halka waxa ka soo samaysay imbalance waxaan ay samaysay waa maxay waa continuation weeye 1 iyo 2 iyo 3 bay meesha ka samaysay almost waxa suganaa inay sii daadato insha Allah laakiin aniga targetkeena waa maxay targetkeena oo imaan doonta ka sugan insha Allah waa ilaa halkaas ilaa halka marka imsa loo jiraa wax fiican baa runtii loo jiraa oo halka qaab nooc lagu imaanaya halka qaabka lagu imaanaya waxa weeye waa qaab 1 iyo 2 iyo 3 ah hadaa fiirisid waa qaab 1 iyo 2 iyo 3 ah almost ina suuqa halka maxaa ka haystaa halka waxa ka haystaa laba taabasho waxaana runtii waa soo saadaalinay suuqa halka asagoo maraya runtii halka meeshaas uu maraya marka soo saadaalinay ilaa intaas oo bib 220 ka bib waxa weeye euro USD waa soo falanqeynaa marka runtii waxaan filayaa dad badan inay ka faa'iideysteen falanqeynteena asbuuca almost marka waxa lagu jiraa baatankan in la soo dhameystirayo 1 iyo 2 iyo 3 halka la imaanayo u badan tahay double bottom ka plus 1 iyo 2 iyo 3 gaas warkan waxaan fiirin doonaa insha Allah intrigeena waxa weeye si ilaa halka waan ka soo faa'iideysan doonaa laakiin intriga saxda meeyay ama meesha saxda suuqa aan ka gali doono almost euro USD maxaa haystaa waxaan haystaa waxa weeye trendy down ama ka haystaa euro USD inta markaa ka heshay kadib runtii calaamadsa waxa weeye meesha supply zone ki waa areadaas waxaan sugayaa markaa in halka waxa weeye insha Allah waliba 1 hour ka daan sii tago 1 hour kan si qurux badan ku sii arki karaa 1 hour kan ku sii calaamadinaya hadaa 1 hour ka xataa ku arki weydid waxa weeye waa xadii ka dhalo time frame ka taken almost marka halka waxa ay tahay meesha supply-ga aan ka sugayo lacagtan la igu laabto almost waxa weeye halkaasna waxa ku jira equal high baa ku jira marka waxay u baahan tahay imbalance-gan market imbalance-gan in la soo buuxin doono market imbalance-gan in mar labaad la soo buuxin doono oo halka la tagi doono marka qaab noocyo lagu tagayaa qaab waxa lagu tagayaa runtii structure halkan waxa weeye imbalance waa ka dhacay waxaan maxay noqon doonaan middle section may noqon doonaan insha Allah hadii la yiraahdo halka marka in qaab noocaas oo kala waxa weeye lagu tago insha Allah 1 iyo 2 iyo 3 noocaas oo kala lagu tago ay u egtaa hadii la yiraahdo marka lacagta waxa weeye insha Allah isha ku haya hadii la yiraahdo lacagta euro USD marka halka ay ku timaado waa trend line plus waxa weeye zone halka hadii lagu yimaado almost waxa weeye waa ka soo faa'iideysan karnaa insha Allah hadii la yiraahdo marka runtii intaas ba hadii halka lagu yimaado bibiska waxa weeye targetkaaga xagee ka dhigan karnaa targetkaaga waxa ka dhigan karnaa halka marka short uga soo gashid halkii waxa weeye halka markii aad short ka soo dhaadin oo halka aad ka soo gashid almost waxa weeye 30kaaga bibi asalka aad iska samaystid ama maadaama meeshan waxa weeye laftigeeda halkaas oo kale suuq ku laaban karo almost meesha korkeeda oo kale xataa waa dhigan karnaa ilaa 40ka bib ilaa meelahaas kale waa dhigan karnaa kadibna waxa weeye TB-ga koobaad ilaa loogaas ka dhigan karnaa 90ka bib marka 90ka bib hadii halka lagu soo laabto insha Allah 90ka bib hadii meelaha lagu soo laabto TB1ka ilaa halkaas ka dhigan karnaa hadii la yiraahdo halka hadii lagu soo laabto 90 bibskaaga insha Allah ka qaado TB1kaaga TB2kaaga marka waxa ka dhigan karnaa ilaa waxa weeye ilaa 150 bib oo kale ama ilaa 120 bib oo kale ilaa TB3kaaga waxa weeye ilaa loogaasna waa ka dhigi karnaa 170ka bib asbuuca waa macquul lacagta inay ilka noo gaadho 170ka bib inta intrigaana siiso marka runtii waxa weeye lacagaha la ilaashado watch list loo samaysto kadibna waxa weeye markay fursad ku siiyaan laga faa'iideysto hadii fursad ay ku siin waayaan waxa weeye fursadda waxa weeye suuqa isku day in waxa weeye fursadda marka uu bixinaya ka faa'iideysto hadaa iskaalbin uga faa'iideysan lahayd hadaa waxa weeye si kale uga faa'iideysan lahayd mar walba suuqa waxa weeye opportunity iyo fursad buu sameeynaya euro USD hadaa halka uga gudbo golliga insha Allah ku xijinaya golliga runtii fursad aad u qaali ah buu asbuucan leeyahay 4 hour kan tagaya golli maxaa u jeedaan golli almost wuxuu sameeyay halkan waxa ka haysanaa demand zone baa haysanaa qofkii xasuusta waxa weeye golli waxaan ka soo saadaalinay ilaa iyo runtii waxaan ka soo saadaalinay ilaa iyo halka waa ka soo saadaalinay bartaas markuu ilaa halka waa ka soo saadaalinay asbuuc hore wuxuu soo dhacay waxa weeye ilaa iyo kumbi buu soo dhaca haddana waxaan ka soo saadaalinay waxa weeye meeshaan halkaas bartaas aan ka soo saadaalinay haddana waxa weeye intaas oo kale soo dhacay 700 marka asbuucan fursadda aan ka sugaynay golli waa maxay asbuucan golli waxaan ka sugaynaa fursad baya sababta aan sugaynaa waa maxay waxaan haysanaa almost demand zone baa haysanaa sidoo kale waxaan haysanaa 1 iyo 2 iyo 3 waxa weeye waxa loo soo jiro inta markaan ka helnay kadib waxaan fiirin doonaa insha Allah 4 hour baan joogaa waxaan isla eegi doonaa insha Allah ase waxa weeye demand zone ahaan ama supply zone ahaan waxa weeye qof baa ii soo qoray qoraal insha Allah walaal waa diyaar weeye waxaan isla eegi doonaa insha Allah 1 iyo 2 iyo 3 markuu dhacay kadib 1 iyo 2 iyo 3 markuu dhacay kadib almost 3 marka qaab noocyo lagu soo socdaa inuu yimaado waan isla eegi doonaa 3 qaabka lagu soo socdo waxa weeye almost suuqa wuxuu ka sameeyay halkan 1 hour kan tagaya 1 hour ka suuq almost meesha wuxuu ka sameeyay break of structure ku sameeyay ama
boss buu ka sameeyey ama hadda soo gaabisay waa brick of structure buu sameeyey almost marka dhimaankan buu kusoo laabanaya insha Allah hadii la yiraahdo haddii kale oo halkan ka fiirisid 4 hour ka tirada 4 hour ka fiirinayaana waxa dhigi ka almost halkan suuq wuxuu ka sameeyey brick of structure buu ka sameeyey meeshan halkan buu ka sameeyey dhowr jeer oo kala duwan buu sameeyey halkan buu ka sameeyey halkan buu ka sameeyey runtii halkan uu ka sameeyay xataa halkan uu ka sameeyay marka meeshan dhimaan saxan inay tahay waa ku muuqata marka halka haduu ku soo laabto 1 hour kan tagaya qaab noocay ugu soo laaban rabaa meeshaas runtii wuxuu ugu soo laaban rabaa qaab runtii structure laftigeedu oo 1 iyo 2 iyo 3 plus 1 iyo 2 iyo 3 ah waxa u jeedaa halkan 1 iyo 2 iyo 3 na ku jira meeshaas kale 1 iyo 2 iyo 3 ga lagu imaanayo ma ahane mid kalena waxa weey meeshaas ku jira qurux badan sidoo kale halkan waxa ka dhacay brick of structure baa ka dhacay sidoo kale meeshan waxa ku jira equal lows baa ku jira equal lowgaasna waa la soo cuni doonaa waa meesha dadku ay ka buy gareyn doonaan oo lagu baabi'in doono insha Allah marka waa la soo jibinayaa halkan baa la imaanaya 1 iyo 2 iyo 3 plus 1 iyo 2 iyo 3 gaas kadibna waxa weeye buy baa laga aadi doonaa haddii intriga koobaad aad waxa weeye aad ka baqdid imala almost waxa weeye mar walba waxa ka faa'iideysan kadhaa brick and retestiga markii waxa weeye trail linka la jibiyo brazonka lagu daro insha Allah oo saa looga dhex baxo oo lagu soo laabto baad waxa weeye ka faa'iideysanaysaa insha Allah hadii la yiraahdo marka asbuucan runtii waxa weeye suuqu wuxuu bixinayaa fursad qurux badan insha Allah laga faa'iideysto hadii la yiraahdo waxaan ku xijinayaa US start ayadu runtii waxa weeye ayada waxa weeye waa buy structure-keedu waa buy laakiin ilaa meelahaas in la imaan doono u badan tahay halkan waxa ku jira demand zone baa ku jira meeshan demand zone baa runtii meesha ku jira level hoosena way ka soo laabatay marka trail line-kuna waxa weeye almost trail line-ki down train-ka waa la jibiyey trail line-ki down train-ka waa la jibiyey up train baa soo suuq isku bedelay marka meelahaas kale hadii la tago halkaan oo kale hadii lagu tago zone-ka hadii lagu tago insha Allah maadaama halka equal high uu ku jiro equal high baa meesha ku jira marka equal high-gaas in waxay u badan tahay la cuni doono halka la tagi doono kadibna suuq uu diyaarsan doono opportunity kale ama fursad kale oo suuq iska aadaya ma jiro ilaa uu opportunity diyaarsado suuqa maaragtay waxa weeye iska aadimay meeshaas marka inuu halka tago kadibna waxa weeye aad soo sell gareysid ilaa halkaas waxa weeye aad ka soo faa'iideysid waa imisa waa 400 oo pip kadibna almost halkan muxuu suuqu kaga sameeyay ogaanaysa high lagu jibiyay almost waxa weeye halkan equal high baa ka heshay equal low baa ka heshay ka wadaa sidoo kale halkan demand zone baa ka heshay kadibna halka aad fursad baa ka raadis marka maadaama trail line brick ay tahay wax walba halka laga siiyay marka intaas insha Allah halka hadii la tago sell-ka ka soo qaado hadhoona waxa weeye long term buy-gaaga ka faa'iideyso la TB-gaaga oo kale waxa weeye ilaa halka hadii lagu yimaado waxa ka faa'iideysan kadhaa ilaa meeshaas ilaa xaggaas ka faa'iideysan kadhaa insha Allah hadii la yiraahdo iyo start halkaas aan ku dhaafaya insha Allah waxaan ku xijinayaa lacagta la yiraahdo CHF GBP CHF runtii CBP CHF asbuuc dhow waa falanqeynay laakiin runtii fursadan uga baahnay waxay ahayd in meesha naloo tago halka in naloo tago meesha zone-ka yarka naloo tago kadibna waxa weeye naloo soo laabto asbuuci hore laakiin asbuuci hore waxaan ka wadaa asbuuca dhexdiisa baan mar falanqeynay laakiin asbuuci hore waxaan falanqeynay inta soo daadashada ay dhan waxa weeye waa falanqeynay qofkii waa ku laaban kadhaan ilaa iyo 130 kb baa falanqeynay inuu suuqa soo dhacayo kadibna way laabatay hadda intriga ku jira marka waa maxay trail line baa la soo jibiyay wax walba suuqan uu sameeyay 1 hour inkastoo lacagtan haddaad tagtid daily time frame-ka iyada iska qaab daranba oo runtii waxa weeye lacag aad u qurux badan maaha maadaama almost aad ku trade gareynayso wax soo kala wax noocan oo kale oo up train aan ahayn down train aan ahayn ma ku falanqeynay baad ku trade gareynaysaa marka xogaa dhibaatadeeda leedahay marka insha Allah waxa weeye lacagtan fursad yar oo maartay low time frame-ka scalping ama siga jira ama xogaa adiga 100 bib ilaa 150 bib oo kale waa laga faa'iideysan karaa marka suuqu mar walba wuxuu ku siinayaa mar walba suuqu wuxuu ku siinayaa opportunity iyo fursad buu ku siinayaa halka waxaan ka sugeynay meeshan halka in la kugu laabtaan sugeynay halkan in la kugu laabto baan sugeynay laakiin suuqi ma sameeyay suuqu wuxuu ka soo laabtay halkan buu ka soo laabtay brick of structure-kan buu ixtiraamay halkan waxa weeye zone-kan ayada laftigeedu waxa weeye supply zone-ka buu ka soo laabtay suuqii marka halka lama gaarin kaasaan rabnay anigu in loo gaaro laakiin lama gaarin marka almost suuqu wuxuu ku siinayaa new opportunity mar walba waxa weeye halka suuqu wuxuu u gaari waayay hadhiin 30 minute ka tag waxa ka fiirisaa supply ka fiirso almost supply waa haystaa waa kan supply-ga marka heshay kadib waa kan
supply gan maxaa ku xaqiijinayna supply tahay almost waxa counter trail lane meeshan uu ka dhacay oo waa la jibiyay inta markaa heshay kadib break of structure-na halka ka heshay supply zone ah heshay meelahan almost waxa weeye equal higher buu suuqa ka sameynaya marka halka hadii lagu laabto maadaama break of structure uu dhacay suuq inta lagu laabanayo meeshaas aase double top markaa waa soo qaada double top ka markaa wuxuu ku noqonayaa waxa la dhahaa double top continuation bariyaada double top reversal hada ogeyd almost double top continuation ajir maadaama suuqa uu soo dhacay halka uu ka sameeyay double top uu ka sameeyay inuu mar labaad halka uu ku laabto double top ka uu soo sameeyay kadibna soo dhaco insha Allah marka waa double top continuation weeye qaabka lagu galayo taqaana waxaas oo dhan waa baranay marka halka hadii lagu laabto insha Allah fursadda saleka ka soo faa'iideyso TB-ga oo kale ilaa halka ka dhigo TB-kaaga TB-ka keesh waa imsabib TB-kaas almost waa 140 bib 140 bib baa ka badan ba marka lacagtaas saas waxa weeye insha Allah halka ilaa halka laga soo faa'iideysto ayada waxaan ka sugaynaa 140 bib haday sii jibisana waa la sii socon karaa laakiin TB-gaaga 140 bib baa ka dhigan karaa insha Allah GBBCHF runtii qof walba xasuusta u mareynaya asbuuci dhow waa falanqeynay lacagtan inay baaga inta la eeg waxa weeye ay aadi doonto waxaan u falanqeynay anagoo isticmaalayna waxa weeye trading strategy-geena waxaan sameynay waxaan soo helnay 1 iyo 2 iyo 3 taabasha 1 iyo 2 iyo 3 markaan soo helnay kadib sidoo kale maxaa helnay 1 iyo 2 iyo 3 kadib waxaan helnay halkan waxaan ka helnay suuq inuu ka sameeyay break of structure sameeyay equal low halka uu ka sameeyay liquidity hole uu sameeyay wax walba oo lacag lagu qaadan karay waa ka helnay kadib waxa weeye 1 hour ka hadda xasuusataan 1 hour ka waxa weeye halka hero shoulder suuq ka sameeyay bayb ka hadda hero shoulder ka aad neckline markii la jibiyo ka qaadan lahayn almost waa kaas halkaas hadda ka qaadan lahayd oo rejection iska multiple rejection iska markaa heshay ilaa inta ka faa'iideysan kadho 160 ka 170 ka ka faa'iideysan kadho marka fursadda hadda ku jiro oo labaad waa maxay fursadda labaad hadda ku jiro waxa weeye u kaadi inta lacag weeye lacagtan CHFJBY ay halka tagayso soonka markay tagto waa meel supply away waa ka soo seel gareen ka dhax xogaa BBC yarada soo raadinay ilaa inta waa imisa 60 ka bib 60 ka bib kadib markay soo dhacdo lacagtan waxay sameynaysaa waxa weeye kadibna waxa weeye bay aadaysa maadaama halka uu ka dhacay break arrintaas halkan waxay ahayd zone bay ahayd suuqa buyers bay haystay waa laga soo jabiyay kadib suuqa hadana mar labaad buu wuxuu soo sameeyay break back in soo sameeyay dib u soo jabiyay almost marka halkan supply-ga hadii la tago ilaa halkaas waxa weeye hal ugu yimaado kadibna waxa weeye fursadda bayga ka raadso sababta uu yiri taa waa maxay low time frame baan tagayaa 1 hour baan tagayaa 1 hour ka meesha waxa ka haystaa meesha supply qurux badan ma ka haystaa waliba 30 minutes ka isku gudbiyaa lacagtaana waxay sameynaysaa uptrend kale oo uptrend ka ku sii dhex jira uptrend kale oo runtii uptrend ka ku sii dhex jiray sameynaysaa marka lacagtaas almost uptrend ka kalena waa ka heshay oo ay sameynayso marka uptrend ka waxaan sugaynaa bounce in mar labaad trail lane ka lagu sameeyo 30 minutes ka joogtaa almost maxaa haystaa hadii kan baa iska dileetid soonka weyn iska dileetid meesha waa meesha isugu halkaas suuq inuu tago tawaas sel waxa weeye low time frame ka wax soo faa'iideysan kara kadibna waxa weeye halka inuu ugu laabto halka hadii lagu yimaado waxay noqonaysaa break of structure meesha ka dhacay break of structure baa meesha ka dhacay sidoo kale suuqu waa soo laabtay intaanu soo buuxinaya halkan meelahan waxa weeye maxaa ku jira kullow meelahan ku jira kullow yar buu suuq meesha ka diyaarsanaya marka halka yimaado marka almost muxuu sameynayaa almost suuq waxa weeye meesha uu soo laaban doona insha Allah hadii la yiraahdo trail-ka inuu kugu soo laabto oo bounce uu kugu sameeyo kadibna waxa weeye fursadda bayga ka raasi insha Allah marka lacagu asbuucan runtii aad bay u qurux badan yihiin waa filaya dhamaantiin inay ka faa'iideysan doontaan insha Allah GBP USD ayada fursad xogaa suuq markuu furmo fursad xogaa baya iga muuqata insha Allah oo waxa weeye xogaa lowgaas la imaan doona u badan tahay soonka in la imaan doono kadibna xagga lagu laaban doono 4 hour ka hadda fiirsid waa lacagtan waa sell trend weeye laakiin wali supply-gaas in lagu laabanaya suuqina insha Allah halka imbalance uu ka dhacay halkan suuq almost correction waxa uu ka diyaarsan doono halka uu tagi doono kadibna soo dhici doono meelaha waxa weeye bottom baa ku jira in bottom-ka suuq soo dhameystiri doono marka sidoo kale meesha supply inay tahay maxaa cadeynaya break of structure baa meesha ka dhacay almost suuqi ayadoo meesha u gaarin buu soo dhacay laakiin inuu laaban doono sababta ku laaban doono hadda fiirino war hour-ka hadda fiirino halkan waxa ka dhacay break of structure baa ka dhacay suuqi uu sameeyay break of structure kan suuq sameeyay macnaha suuq waa marna bay u tun marna sell u tun way break of structure baa dhacay demand zone baa haysta suuq uu soo laabtay meelahan buu wuxuu ka diyaarsanayaa waxa weeye equal low ka diyaarsanayaa halkan buu imaanaya adiga halkan markii lagu yimaado insha Allah hadii la yiraahdo oo rejections ka heshay fursadaada bayga akili kada hadii kale 5 minutes baa tii kada waxa ka fiirin kada button reversal meeshan ina 1 hour rejection sugtid waxa kaga fiican xataa sometimes inaad waxa weeye 5 minutes inta tagtid
aad ka heshid waxa weeye low time frame pattern yara ka heshid marka halka hadii lagu yimaado adiga asalkaaga 30 bib oo kale ka dhigay insha Allah ama 25 bib ama 20 adiga 30 bib oo kale enough weeye marka hadii lagu yimaado fursadda bayga ilaa zone-kaas ka faa'iideyso waxa ku jira 150 bib 150 bib way ka badan tahay hadda halka markii lagu yimaado waxa weeye rejection ka heshid fursadda waxa weeye sell-ka ka soo faa'iideysa hadii la yiraahdo halka markii loo tago waa another opportunity waxa weeye sell another opportunity oo sell insha Allah hadii la yiraahdo halka markii loo tago marka xagga xataa waxa weeye suuq maartay almost meeshaas trailerkii waxa soo ka diyaarsanaya marka in malaha insha Allah markii halka bay lagu yimaado bay uga faa'iideysa hadhow sell uga soo faa'iideyso insha Allah euro AUD ugu dambaysiinaya insha Allah euro AUD fursadda aan ka sugayno waa maxay ayada fursadda euro AUD aan ka sugayno waxa weeye haddaan dhigaydo wax oo dhan isbuuci dhow toban falanqeyn runtii halkaas waxa weeye waxaan ilaa halka waa laga soo dhacayaa ilaa in sabib qor state ka biyo soo falanqeynay runtii lacagtan waliba markii aan ka baxnay waxa weeye zoom-keeni markaan ka baxnay arday bay weydiiyay kadib saas aan u falanqeynay oo maaragtay opportunity-ga cusub saas aan uga helnay marka almost halka here and shoulder baa ku jira lacagtan waxa ku jira here and shoulder waa runtii waa button 4 hour ka heshay ilaa daily xataa si fiican baa loo arkayaa marka almost lacagtan waa down ilaa waxa ku jira runtii ilaa iyo waxa weeye ilaa iyo 300 bib runtii waa ku jira asbuuca waxaan is leeyahay ilaa 300 bibs lacagtan way dhaqaaqi doontaa insha Allah marka xagga hadda fiirisid sababta baa ugu dirnay sel ugu dirnay waa maxay almost waxa ka heshay halkan almost waxa ka heshay runtii halka meelaha waxa ka heshay imaan baa ka heshay one hour ka dantiga waxa weeye supply baan ka wadaa one hour ka dantiga si fiican halka u arkayna supply-gaas one hour ka dantigo supply-gaas si fiican baa u arkayna waa kana hatta one bib oo draw doona waxa weeye meesha laga ma aadin waa la tagay almost maxaa ka heshay meeshaas waxa ka heshay waxa weeye brick of structure-na waa heshay opposite waxa weeye zone quality waa heshay waa la soo laabtay la soo laabtay qaab noocyo meesha lagu yimid 1 iyo 2 iyo 3 baa lagu yimid 1 iyo 2 iyo 3 qurux badan baa meesha lagu yimid kadib maxaa dhacay trailing waa la jibiyay trailing markii la jibiyay kadib maxaa fiirinaysaa mar walba adiga waxa weeye pattern separation kaaga iska samee suuqa halkan wuxuu ka sameeynaya suuqu uu soo dhacay oo intriga koobaad iyo intriga labaadba labadii intriga suuqu uu soo dhacay kadib suuqu waxa weeye laabashu sameeyay hadda marka fursadda kala agsugayso waa maxay 30 minute kaaga iska tag fursadda sell-ka goorma ka sugaysaa fursadda sell-ka insha Allah waxaan ka sugayaa fursadda sell-ka waxaan ka sugayaa insha Allah waxaan sugayaa suuqu intuu maartay almost wuxuu sameeyay suuqii wuxuu ku laabtay halkan wuxuu ka sameystay supply buu ka sameystay supply soo kama ka sameystay 15 minute ka tag daartid kadib fiiri halkan waxa ka dhacay counter trend line baa ka dhacay xataa waa la jibiyay counter trend line-kii marka almost lacagtaas qaabka hadda ay ku socoto waa maxay qaabka hadda ay ku socoto runtii waa qaab qurux badan marka lacagtan waxa weeye suuqu markuu ku furmo insha Allah fursadda sell-ka waa ka soo faa'iideysan karaa laakiin waxa qurux badan halkaas loo waayarka lagu jabiyo halka brick of structure ka dhaco boss ha ka dhaco brick of structure kadib suuqa soo laabto halkan waxa weeye meesha waxa weeye dhimaanka supply-ga yarka ha kugu laabto ha soo jabiyo suuqu kadib halka ha kugu laabto insha Allah markuu soo jabiyaba suuqu muxuu sameeynaya laabashu sameeynaya low time frame meel walba waxa weeye istiraatiijiyada waa ku garaacaysaa halka markii lagu laabto kadib ilaa halka waxa weeye ka soo faa'iideyso inta asbuucu marka waxa weeye qurux badan yahay diiwaanka oo kale meesha waa ka dhigan karnaa hadda almost waxaan joogaa 15 minute baan joogaa laakiin intaas oo kale hadda waxa weeye waa 90 bib 100 bib wax ku dhow marka lacagtan runtii waxa weeye lacagtan runtii aad bay qurux badan tahay TB-gaaga waxa weeye overall ilaa ay ka dhigan karnaa insha Allah marka waxa weeye intaas aan kusoo gabagabeynaya insha Allah falanqeynteena suuqa wax su'aal ayaa ka qaba insha Allah hadii la yiraahdo dhamaantiin yaa su'aal ka qaba insha Allah ama waxa weeye lacag kala tabay insha Allah inuu falanqeeyo Ustaad Bashiyo hawl waxaan rabaa hal mar inaan noo fiirsado doo la yiraahdo JBB Japanese JBB JBY JBB JBY walaal hal mar noo fiirso wallahi JBB JBY waxaan ka sugaynaa lacagta halka inay nagu laabto asbuuci dhow toban falanqeynay waan filayaa halkan waxaan ka sugaynaa in horta halkan noo timaado inay maaragtay ay noo timaado zone-kan ay noo timaado bartaan inay timaadaan ka sugaynay kadibna buy-gaas ay samaysay kadibna halka aan soo sell garayna laakiin intii maysa samayn oo halkan maysa soo jibin double bottom-kaana maysa imaan intaasoo biib bay iska dhaqaaqday almost marka hadda fursadda kale ay ku jirta waxa weeye
almost hadda waxay joogtaa meel zone ay joogtaa waxay ku samaysay retest bay ku samaysay marka lacagtan waxa weeye kulli meesha loo wado halkaana counter trail lane baa ka dhacay counter trail lane ka markuu ka dhacay haddaa fiirisid 1 hour haddaa fiirisid 1 hour haddaa fiirisid lacagta walaal waxay samaynaysaa almost halkaana waxa ka dhacay break of structure baa ka dhacay break of structure baa ka dhacay meesha marka waxay tahay meel waxa weeye meesha marka lacagta almost hadda halkan waxaan hila shoulder bay u tahay oo baatankaan kugu samayn kadhaa oo saana intay kugu samayso bay bayga kugu aadi kadhaa marka anu lacagta waxaan dhihi lahaa meelahaas yaan laga seel garan insha Allah hadii la yiraahdo laakiin hira shoulder oo hoos u jeeda meesha ugu dambaysa hira shoulder oo qaab daran maahan miya walaal kan hadda meesha ay maraysaa ha bay hira shoulder wuu yahay laakiin kan laftigiisa waxa weeye maaragtay kan laftigiisa meesha ku jira hira shoulder kan meesha ku jira marka kanay kugu mataqaanaa ay ku ixtiraamtaa macquula marka almost anu lacagta waxaan dhihi lahaa haddaa fiirisa xataa baatanka cap and handle bay samaynaysaa caadi ah marka halkaas supplygaas meesha supplyga meel ka sokaysa waxa weeye ha ka soo seel gareenin haddaa seel garanaysaa halkaa markay tagto oo maaragtay meelahan almost equal high bay ka diyaarsanaysaa marka anu waxaan dhihi lahaa lacagtaas waxa weeye inay meesha tagaysay u badan tahay insha Allah marka meelahan hira shoulder kan inay ixtiraamto kadibna meesha tagto halka double topka caadiga markay soo samaysay insha Allah alla soo seel gareeyo maadaama hataa break of structure meesha uu ka dhacay xagaan hataa waxa ka dhacay boss ba ka dhacay ama break of structure ba dhacay marka lacagtan seelkeeda runtii ma qurux badna halka haday tagtaa hataa marka halkaas anu waxaan dhihi lahaa ilaa halka la sugo insha Allah hadii la yiraahdo fursadaas waxa weeye okay ustaad si fiican ma sha Allah ka warna ayada euro JBY da wallahi euro JBY Europe way halkaas asbuucii dhawaa tawaanaga ka soo falanqeynay asbuucii hore meelahaas ay ahayd baa u maleynayaa ilaa halka ilaa 270 bay soo dhacday marka haddana way soo laabatay oo soo noqoshay samaysay marka lacagaha waxa weeye JBY oo dhan waxa weeye CHF JBY waxaas oo dhan waa buy lacagahaas oo dhan waa buy sidoo kale waxa weeye JBY sababta u laabatayna waxa weeye taas weeye marka lacagtan euro JBY hadda hal mar fiiriyo lacagtan hadda hal mar aan dul maro daily time frame kan fiirin doonaa horta almost halkan wala lacagtan waxay samaynaysaa halkan waxay ka samaysay button double bottom ay ka samaysay waa maxay waa reversal button weeye sidoo kale 4 hour ka marka fiirisid maxay samaysay 4 hour kana waxay kaaga samaysay meeshaas trail lane bay ku samaysay trail lane waxa dhacay break out ba dhacay trail lane break out ka markuu dhacay almost halkan maxaa ka haysaa marka button ku muuqda hira shoulder garab iyo laba madax marka waxay u badan tahay insha Allah garabka kale inay soo noqonayso oo halkan ay waxa weeye maaragtay meelahan ay imaan doonto trail lane kan si fiican ah u sawiro adiga in meelahan insha Allah waxa weeye 50% retracement inay sameynayso maadaama waxaan u yahay uptrend oo intaas oo dhan waxa weeye bay la aaday ilaa halka in la soo laaban doono marka meelahan oo kale hadii la yimaado halkan oo kale hadii la yimaado zone kan oo kale oo waxa weeye hadii lagu soo laabto insha Allah waxa weeye halka retest ahaan baa lagu soo laabanaya marka button kan ay ixtiraamaysa kadibna saas waxa weeye bay ku aadaysa marka lacagtan waa bay walaal ilaa double top in lagu laaban doono ay waqti insha Allah hadii la yiraahdo okay ma sha Allah hal mar oo kale ugu dambayso AUD card ka dan oo fiiri karta aydan ustaad doomaad okay AUD card lacagaha yararka AUD card taasoo kale madax wareer baa laga qaadaa waa maanta dhaqaaq badan ma sameynayso iskhilaaf taasoo kale waxa weeye dhaqaaq badan ma sameynayso waa maanta way kugu rafanaysaa marka laakiin hadii BBC ra ka raadinaysid BBC hadda ka raadinaysid tan oo kale waxay sameynaysaa waxa weeye almost waa trainkeedu waxa weeye waa down weeye trainkeedu waa down da fiirisid trailinka madaxa waxa yar lagala baxay laakiin waa la soo laabay leedahay ayuu dhiigad oo 60 biiba marka meelahan kulli halkan double bottom kan meelahan in loo soo socday u badan tahay halka la imaan doono weekly time frame kan fiirinaya oo kaadi almost lacagta wali waxa weeye waa fursad waxay leedahay laakiin almost halka da fiirisid halkan dhiman baa ku jira dhiman soo qurux badan baa ku jira meeshan daily time frame kan fiirinaya marka
anytime frame ka halkan maxaa ka dhacay halkan waxaa ka dhacay brick of structure baa ka dhacay halkan waxaa ka dhacay brick of structure baa ka dhacay kadib sidoo kale trail line halkan waa laga jabiyay trail line kan yarkan waa la jabiyay marka almost double bottom kan baa loo socdaa 4 hour ka hadaan fiirino meeshaas meelahan demand zone waa inaan ka helnaa fiican hadii lacagtaas yala uga soo faa'iideysan aan bay uga faa'iideysan doono insha Allah almost halkan maxaa laga sameeyay xataa brick of structure kala ka dhacay meeshan marka walaal lacagtan sida hadda ay muuqato waxa weeye halkan maxaa u jeedaa halkan oo kale maxaa u jeedaa waxa u jeedaa demand baa u jeedaa sidoo kale halkan maxaa u jeedaa demand kala u jeedaa markaan oo kale waxa la sameeyaa demand-kan saxda in lagu soo laaban doono badan tahay kan markaan oo kale waa ku wareeraysaa marka kan insha Allah hadii la yiraahdo meesha double bottom kaagaas halka in lagu soo laaban doono u badan tahay insha Allah hatta baatanka lagu soo laaban doono fiirisid 1 iyo 2 iyo 3 gaas ku jira laakiin si area-dan wali halkan in lagu soo laaban doono u badan tahay insha Allah halka brick of structure uu dhacay waxa walba uu dhacay laakiin wali waxaan moodaa momentum lagu soo laabtay waa momentum awood leh marka in double bottom ka uu yaraan la imaan doono u badan tahay insha Allah halka hadii la yimaado fursadda bayga ka raadsan marka insha Allah double bottom ka markii la yimaado ku badan tahay 4 hour ka waxa ka dhiman wax yar baa ka dhiman wax u badan kama dhimana waxa ka dhiman 36 bii baa ka dhiman 36 baa iska sug insha Allah markii lagu soo laabto fursadda bayga ka raadsan marka saas weey walaal insha Allah hadii la yiraahdo ka hor meelahan dhimaanka waa ku wareeraysa kan dhowr dhimaan baa ku jira marka momentum-ka lagu soo laabtay momentum meelahan bay laga aadi kara ilama eka marka sel awood lagu soo laabto marka in halkan la imaan doono u baahan tahay insha Allah halka hadii la yimaado waxa weeye 30 kaaga bii meelaha SLkaas ka sameeyso ama 40 kaaga bii kadib bay u qaado insha Allah marka intaasan yaa kala u baahan in lacag loo fiiriyo waxa weeye intaasaan kusoo gabagabeynayna insha Allah hadii la yiraahdo hameen dambana waxa isla eegi doonaa insha Allah scalping-ka waan kusoo gabagabeynayna insha Allah kursadeena xogaa scalping-kaas la eeginaa 1 minute-ka waxa weeye supply and demand sida loogu sameeyo sida caadiga anu demand supply mataqaana aan u sameeyo waxa weeye scalping-ka adu waxyaalahaas oo dhan insha Allah hameen dambe isla eegi doonaa kursadeena waxa weeye hameen dambe ku egtaa insha Allah marka inta ka horeysa aad baan salaamaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh